waxay tiri nyaayadii markaan arkay waxba kama dhiganin waa iskaga maaragtay soo baxay musqusha habeenkii labaad waxaa dhacday tiri waxaan arkay waxaan maleeyay tiri sidii maaragtay tin oo kale waxaan isri tinta xagee ka gashay calooshaada waxba kama dhiganin tiri habeenkii saddexaad intaas waxay wadaa marka ii sheeg ee quraankii baqaro tahliishii maasha Allah wixii dhan isku wadaa habeenkii saddexaad waxay tiri habeenimo waay waxaan waqtiga ay dhacayaan oo dhan waa un maaragtay habeenkii saddexaad waxay tiri wax adag oo la isku xirxiray oo kale xirig oo kale ah waxay tiri iga soo maaragtay lalmaday markay iska soo laadiyeen waa yaabay tiri waxaan maxay yihiin waxay tiri nafan iska daygeesinimo maanta ku dhamaatay maxaa way waxay tiri qabaan isri waa soo jiiday tiri waa wax dheer waxay dhahday calooshayda waxaan ka dareemaa marka meel ay xanuunaysay tiri meesh ay xanuuni jirtay waxaan ka dareemaa inay wixii meesha ka soo furmayaan dabcan wax meel ku xiran markii la soo jiiday waa taqaanaa wixii baan soo jiiday tiri way xanuunayaan caloosha waxay meel wax ka soo furmayaan waa dareemaa tiri waxa isa soo furay waa jiiday tiri waa soo furmeen ugu dambeyn waxa dhirarkii ka batay oo aan macquul ahayn calool ibn aadan in ay galaan ayaa waxay tiri iga soo baxay waan qaracmay tiri banaankan la imaaday waa fiiriyay tiri meelaan ku ridi waagaa ku bariyaan isdhahay waagi haduu bari waxay tiri waa xariiq waa tin waa balaayo waa qashin oo meeshay la eg yihiin hadaa aragto qofkii arkaba uu qaracmay tiri ilaahay baan u mahad celiyay tiri alxamdulillaah waxay tiri wixii weelaan ku riday daban qaatay waxay tiri waan gubay oo wixii waaba ii gubi waayay tiri يعني waxay ku gubmeynay tiri si adag waxba ka gubtay waxa kale waa hareen hadana waa gubay ugu dambeyn wixii way dhamaadeenay tiri alxamdulillah waxay tiri markii wixii iga soo baxeen oo aan wixii gubay wixii xanuun ihaayay oo hami ihaayay walwal iyo walaac ihaayay oo qandha ahaa oo nabar ahaa meesha ugu dambeysay tiri saacadii waxay tiri ilaahay iga qaaday tiri intaas kaliya ma ahane qalbigii xanuunsanayna ilaahay waxay tiri iga shaafiyay sababtoo ah walaalayaal xanuunadan markii qofku ku dhacaan meesha ugu daran oo ka xanuunsado waa qalbiga yani qalbiga wuxuu ka dareemaa ciriiri ama wuxuu ka dareemaa xanuun ama si unbaa qalbiga yani daawadana qalbiga laga dareemaa xanuunkana qalbiga laga dareemaa waxay tiri ilaahayba wixii aan gubow raaciyay wixii ahaay alxamdulillah waxay tiri alxamdulillah waan farxay tiri nolosha dabiiciga iigu soo noqotay haddaba waxay tiri ilaahan baryo ula fariisto waxay tiri ilaahayow qofkii sidaan ii galay itusi waa baryay tiri ilaahay markaan baryo dhowr habeen ilaahay baryo oo ilaahay baryay waxaa dhacday tiri habeenka markaan seexday qofaa ii yimiday tiri nin ah ninka markuu ii imaaday labada indhood waxaa kaga dhaganay dhahday inta sanka aan u banaan tahay qofkii indhaha xirnaa sidii habeenkii riyada markaan ka kacay waxay tiri sidii aan ku waayay habeenkii labaad markaan seexday waxaan arkay tiri nin ooynaya habeenkii saddexaad ay tiri waxaa la i tusay ninkii oo meel taagan waxaa la dhahay qofkii saan ku yeelay waa ninkana waa kana waxay tiri magac laabtiisa la kala furay tiri laabtiisa markii la kala furay ninkii waxaaba ku qoranay tiri magaciisa magacii qofkii sidaan ii galay ayaa ma aragtay ku qoran waxay tiri waan kacay subxaanallah riyadii aan ka kacay tiri waaga markuu saas u bariyay tiri gabadha waataan idin soo sheegay macaan inuu ku dhacay sokor ay haysatay oo sokor ku dhacday haysata la iga dheh inay sokor ku dhacday waxay dhahday sokortii igu dhacday qofkii habeenkii la tusay tiri magaciisa ayuunbay waxay tiri ku wareegatay horta asagoo meel iska jooga waxay tiri iska baashaalayo ka qasneen lagu soo booday tiri mar allaali markii lagu soo booday neefta ay ku ceshoontay ilaan gabadha neefta lagu celinayay neefta ay ku ceshoontay waxay tiri sokortiin asaga ku wareegatay hadday ku wareegatay waxay tiri sakaraat waaba kii oo dardaarmay
haddaba waxa isweydiinaysaan qofka gabadhan waxaan ku sameeyuu yahay qofka gabadhan waxaan ku sameeyey waa qof aan laga filanaynin subxaan allahi macquulna aysan ahayn qalbigaaga inay kusoo dhacda marnaba walciyaadu billaah qof aad iyo aad ugu dhow waayo oo xataa walaal uga dhow oo aad iyo aad uga dhow qofkaas uga dhow gabadhaas uusan jirin insaan ah ma raba inaan sheego qofkaas qofkuu yahay laga yaabaa in maaragtay uu ii sheegay fidno kale ay ka dhalato haddii aan qofkii sheego wixii oo dhan way islahaanayaan marka sidaas darteeda muhiim ma aha qofkuu yahay yacni muhiimaddu waxaa waaye qofku waxaa sameeyey qof laga filaya inuusan ahayn horta ilaahay wuu ciqaabayo xanuunkii asagu alla ku riday ilaahay waa ceebeeyayo waa tusay inuu asaga yahay waa la tusay gabadhii haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala sharta dadka sharwadayaasha ahana mootiyo dadkaas walaalayaal waxay noqon karaan waalid walaal ehel caruur qof walba qofka hadduu shaydaan qalbiga ka galo walaal waxba kuumaha adiga aaba kuumaha hooyo kuuma aha oo waxaa dhashay maaha qof hadduu shaydaan qalbiga ka galo wax uu adiga ku yahay lama arko marka ilaahay shaydaanka xaasidka ah noocaas ah oo dadka qayiraayo bedelayo waxay yihiin asalkoodii ka qaadayo ilaahay horta qalbiga nagama geliyo kow waxa alxamdulilah ah gabadhii walaasheena ahayd in ilaahay subxaanahu watacaala xanuunadiina uu ka qaaday dambe oo kuwii horena alla ka qaaday uu ilaahayna qofkii saas u galay tusiyey marka ani hal midaan raba inaan idinka waaniyo walaalayaal ha ku mashquulina qofka ii sheeg ee idin dhibaatay inaa aragtiin waxa laga yaabaa inay maaragtay oo ilaahay idin tusi waayo arrinkaasna uu idinku noqdo niyajab iyo murugo idinku noqotaa laga yaabaa maxaa yeelay mar walba alla og wixii kuu khayr badan gabadhaas walaasheena waxa u khayr badneed laga yaabaa in la tuso subxaan allah laakiin waxaa laga yaabaa adiga inaysan kuu khayr badnayn qofka ku dhibaateeyey in lagu tuso maxaa yeelay aniga hadda qisada idinkaga sheekeynayo dadkii sidaan ii galay waa dad ii dhow dadkii aniga ii dhibaateeyey walaakiin muddo waxaan baryaa ilaahay inuu i tuso dadkaas waana layga qariyey marka faraha isaga qaaday waxaan eri lacalahu khayr inaan arkin inay ii khayr badan tahay laga yaabaa marka walaalahayga insha allah qisadii meeshaasan kusoo gabagabeynayaa ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iideen waxaan idinkula talinayaa insha allah in maaragtay oo ducada aabadisiin oo ii sheeg qur-aanka aad ku dadaashiin oo aydan isdhiibin arrinta kaloo baraarujinta badan waxay tahay cudurada halka mar soo booda walaalayaal waxaa laga yaabaa inaysan ahayn cudurada caadiga ah ee cuduradaas ay yihiin oo balaayadaas la xiriirto marka waxaan mar walba idinkula talinayaa wax allaale iyo qofka xataa haddii xabad ku dhacdo ilaahay nooma ka soo walciyaadu billaah waxaan idinkula talinaa in marka hore qur-aan laga bilaabo sheekada lianna waxaa lagu tusayaa meesha oo sheekada kaa jirto iyo daawada oo dhanba isbitaalkay kaa jirto dhakhtarkay kaa jirto marka walaalahayga sharafta badan meeshaasaan qisada kusoo gabagabeynaa iisoo duxey inaan soo laabto waa idin xiisa wallahi alcadiim waxaa jiro walaalo fara badan oo igu dhahay aaminoy maxaa kugu dhacay soo laabo waxaa kaa intaas iga sii daran wallahi maamooyin sharaf iyo karaamo allah siiyo allah khayr badan ha siiyo dhammaantiinaba yarkiina iyo weynkiinaba insha allah rag iyo dumar saa u dhantihiin iisoo duxey inaan soo laabto culeysa iga saaran culeys weyna iga saaran aanan qiyaasi karina iga saaran mashquul kalena waa iska kay qabsaday insha allah ilaahay idan barakay dhammaantiina ilaahay isku keensiya mar kale videoga xiga intaan ku kulmayna waxaa idinkaga tagaya walaalahayga dhammaantiina ilaahay subxaanahu watacaala inuu dembigeen dhaafo iyo dembi waalidkeena iyo qof walba xaq nagu leh insha allah ilaahayna hanuuniyo ilaahay noo dembi dhaafo ilaahay cizi ishraaf sharaf iyo karaamo uuna siiyo ilaahay subxaanahu watacaala dalka noo hagaajiyo iyo dadka iyo diinta allahuma aamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fi amaan illah